halkani waa degmada Xaafuun waxaana muddo ku dhow 100 sano ka hor dawladda Talyaaniga oo gumaysan jirtay qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya ay ka helisay idaacadan dalmar waxay saaran tahay gaari Languusra waa idaacad guurta oo hadba meel tagta waxaan baahinaa barnaamijyo kala duwan qaybtooda ay la xiriiraan ka wacyigelinta dhalinyarada arrimaha midnimada waxaan ku leedahay barcadbadeeda ku dhiirigelinta wax soo saarka sida beeraha kalluumaysiga sidoo kale waxaan geynay fariimo ku saabsan ka hortagga cudurrada sida shuban-biyoodka malaariyada maxaan ku yiraahdaa dabaysha marka aad ku safartid waxaad u soconaysaa ilaa 2 saacadood taasoo ay sabab u tahay wadada oo ay adag tahay inay gawaaridu xawaare sare ay ku socdaan Xaafuun waxa ku wareegsan bad hal wado ayay leedahay laba nooc oo wax u baahinaa marka aan barnaamijyadeena baahinayno nooc waxaan adeegsanaa FM tooska ah oo dadku ay naga dhageystaan taqriiban 10 kilomitir isku weera marna waxaan ku xiran gaariga korkiisa makarafoonadaas ayaa barnaamijka oo recordina ama gacanka laga hadlayo dadka isku gaarsiinaa labada hab ayaan barnaamijkeeda ku gaarsiinaa hadbana waxaa adeegsanaa midka noo fudud gaarigu idaacadda FM-ka oo ogtahay koronto ku shaqaynaysaa gaariga korontadiisa iyo dabkiisa wixiisa dhan isagaa wata uma baahanay inaan ku xirno koronto kaleto oo bannaanka ah gaariga baterigiisa iyo dabkiisa u isticmaalaya shaajaradiisa wixiisa dhan oo u qaybaysan yahay gadaal bay ku jiraan marka FM taasan adeegsanaa dadku waxay kala soconayaan telefoonadooda iyo raadiyaashooda cidii marka aan awoodi karin waxaan u shidnaa mikrofoonka toos wareegaysa markii hore waxaan asaasaynay waxay ahayd radio kaliya oo gaariga Languuselka saaran laakiin maanta waxaan ku darnay habkii online-ka ahaa oo wararka ka kooban iyo barnaamijyada iyo muuqaalada lagala soconayo gaar ahaan social media laakiin waxaan rabnaa inaan mustaqbalka intii aan ballaarin karno ballaarino guud ahaan Soomaaliya oo dhan geyno barnaamijyadeeduna ay noqdaan barnaamijyo sii soconaya oo dadku ay ka faa'iideystaan inta badan barnaamijyada waxa weeye qaybna waa nala ka taageeraa oo gaar ahaan maxaa ku raahdaa barnaamijyo waxay noqdaan sponsored oo la taageerayo qaybna waxay noqdaan qayb anagu iskayagu ugu madax banaanahay oo anagu gaariga dayactirkiisa iyo shidaalkiisa iyo suqabno marka insha Allah waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan helo budget nagu filan oo aan kaga kaaftano inaan barnaamijyada hadda qaybtooda sponsor gareynayo ay noqdaan kuwa anagu ku filanahay